السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين سو دوادا meel kastoo caalamka joogtiin iyo waqti kastoo idin tahaba haddaad tahay markii ugu horreysay oo aad la kulanto muuqaaladeena insha Allah waxaan kaa codsanaynaa inaad nala sii joogto subscribe na saarto like saarto asxaabtaada la sii wadaagto haddaad tahay qof nagu xirnaa oo wax badan nagala socdana aad iyo aad u maasanta waa kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga qaaliga ood nala joogto ama aad nagu bixiso maantay maanta waxaan wadaa waxaa la gaaray waqtigii runtii ku habboonaa qof kasta oo jecel inuu maanta lifestylekiisa iyo shapekiisa wax ka bedelo runtii uu ka faa'iidaysa lahaa November 2020 waxaa jira video aan soo duubay videogaas oo aan kaga hadlayay waxyaabo badan oo aan raadinayay dad serious ah oo raba inay miisaan dhimaan iyo dad raba inay miisaan kordhiyaan dad badan markay maqlaan miisaan la kordhinayo waxa laga yaabaa inay markiiba ay u fasirtaan in cayil iyo waxyaabo may miisaanka la kordhinayo oo maqlayso waa masakal ama muruq ama maaragtaa waxyaabahaas weey maahan marka miisaankii caadiga ah faadka ahaa wax weey baruurta taas waa midkaan la diriireynay haddaba waqtigaas videogii aan ku sheegay inaan u baahanahay dad badan oo waxa weeye aan markaas waxa weeye ka caawiyo meal balanka iyo systemka coaching u sameeyo si ay miisaankooda u yareeyaan bulshadeenu boqolkiiba 80 waa dad markaas waxa weeye miisaankooda runtii badan yahay marka dad badan ayaa runtii muuqaalkaas soo daawaday kana faa'iideystay qaybo kamida dad kamida ayaan soo casuumayaa horta mar dhow insha Allah maalin kadib si live ah waxaad arki doontiin isbedelka ay sameeyeen marka qof baan insha Allah idinku soo gali doona marka taa idan kama hor dhacayo isbedelkii dadkii barigaas go'aanka qaatay ama waqtigaas go'aanka qaatay runtii isbedelkoodii iyo resultigoodii iyo farxadda ay maanta haystaan iyo sida shala ahaayeen iyo maanta sida ay yihiin ayaad arki doontiin insha Allah biidnillaahi kariim hadda maantay waxaa la taagan yahay ama la joogaa waqtigii ku habboonaa ee aad dhimi lahayd miisaankaaga waqtigii ku habboonaa ee aad qaadan lahayd go'aan maantay haddaba maanta waxaan raadinayaa 10 qof oo hab caafimaad miisaankooda u dhinto u yaraysa iyo 5 qof oo miisaankooda kordhisa iyo 5 qof oo kun oo quraacdooda wax ka bedesha ayaguna saas oo kale quraacdooda bedesha marka intaas ayaan maanta doonayaa runtii waana waqtigii ku habboonaa waxaan ku sii doonaa coaching free ah waxaan ku sii doonaa meal plan oo sax ah oo runtii aad ku faa'iidi doonto maanta maalin aan ahayna adigana insha Allah isbedelkaaga ayaan halkan ka share garay doonaa waxayna ku xirnaa doontaa sida aad serious u tahay iyo go'aanka aad qaadato iyo sida aad u rabto inaad noloshaada wax uga bedesho runtii dad badan oo halkan runtii aan ku soo wareystay noloshooda wax badan iska bedelay dad badan oo halkan ku soo wareystay runtii waxaad aragteen farxadooda iyo steelkooda iyo sidii maanta u nool yihiin waxaan doonaynaa marka bulshadeena Soomaaliyeed runtii in ay noqdaan ama u bataan inay helaan nolol qurux badan iyo lifestyle bulshadeenu inta badan lifestyle-ka wax macnaa uguma fadhiso ama ma fahansanaba markaad la hadasho tira maanta cuntadaada wax ka bedel ama cuntadaada qaldan ama sidaan ay wax ka yihiin markiiba waxa laga yaabaa qofku inuu qalad ku fahmo ama uu saba ku baraarugsanayn quruxdiisa shapekiisa qofka waxa u horseedi kara ama qurxi kara inay tahay cuntada aad cunayso maantay ayaa ka dhigi karta qof qurux badan oo style ah ayada ayaa ka dhigi karta qof fool xun oo miisaan badan oo cayilan oo wax weeye aan nolol uusan jeclaysanin marka ku noolaada marka daba go'aankaaga iyo gacantaada iyo afkaaga ayay markasta wax kasta ku xirnaa doonaan insha Allah biidnillaahi kariim haddaba anigu waxaan kuu ballan qaadayaa haddii aad raacdo planka aan ku siinayo qorshaha aan ku siinayo wixii aan jooji ku iraa aad joojido inaad isbedel degdeg heli doonto runtii anigoon ku dhehaynin markaas waxa weeye dawo cun anigoon cuntada kaa jaraynin anigoon markaas waxa weeye qalb ku cabsiinaynin iyo liindhanaan iyo sinjibiil ayaa wax weeye miisaankaaga runtii dhimaya cuntadaadana wax ka bedeli doonaa iyo nutritionkaaga nafaqadaada because waxaan ogahay ama aan garanayaa waxyaabaha jirkaagu u baahan yahay iyo waxa uusan u baahnayn sirtu waxay tahay maxaa jirkaagu u baahan yahay maxawse jirkaagu u baahnayn intaa haddaan isla fahano ama intaas aan kaala shaqeeyo runtii ama aan ku siiyo balaanka kugu habboon
waxaad gaari doontaa adiguna isbeddelka aad doonayso, shape-ka aad rabto, quruxda aad rabto. haddaba maxaa la joogaa hadda? waqtigii ku habboonaa ayaa la joogaa. 3 bil ee soo socota waa 3 bil ee haddaad rabto inaad miisaankaaga dhinto aad dhimi karto. sidee? kow, cuntadaadaad beddelaysaa, waana lagu sheegayaa waxaad cunayso iyo sidaad u beddelayso. waxaad quraac ka dhiganayso, waxaad casho ka dhiganayso, waxaad qada ka dhiganayso, iyo waxaad snack ka dhiganayso ayaa lagu sheegayaa. waa waqti runtii summer ah oo kulayl ah oo waxa weeye jirkaagu maaragtay calories badan uu ka bixi karo, aad dhididayso runtii. 9 bilood kalena oo qaboobo ahna way kasii dambaysaa. marka 3daas bilood ayaad waxaad samayn kartaa inaad miisaan aad u badan runtii ku rido, noloshaadana aad wax badan ka beddesho. ka waran haddaad 9 biloodna guri ku jirtay oo qabow ay ahayd, 3 bilood ee samarkana aadan ka faa'iidaysanaynin. 3 bilood ee samarka lagu jiro haddii aadan haysan balance iyo nutrition iyo diet aadan haysanin, lagama yaabo inay wax badan kaa caawiso. maxaa yeelay si kastood u orado, si kastood jimicsi u samayso, si kastood jiimka u aado, si kastood calories u gubto, cuntada aad cunayso haddaysan ahayn wax dheeli tiran ama wax balance garaysan, ama aysan ahayn high nutrition low calories, wax aad gaarayso ama hadaf aad gaaraysa ma jiraan. marar badanna waan ka hadlay, dad badan waxaa iskaga qaldan. jimicsi qofku wuu samayn karaa, orod wuu samayn karaa, calories wuu gubi karaa, laakiin waxaa muhiim ah adigoo noloshaada iyo caafimaadkaaga dhibaataynaynin, adigoon isteelkaaga iyo maaragta jirkaaga aan dhibaato u geysanaysin, inaad hesho cunto dheelitiran oo nafaqo runtii. kama maarantid coach, kama maarantid in maaragta coaching lagu sameeyo, kama maarantid in meal plan lagu sameeyo, kama maarantid in lagula taliyo, kama maarantid in lagu dhiirigeliyo, kama maarantid in waxa weeye hadafkaaga lagaala shaqaysaad ku gaari lahayd. haddaba maantay ma raba inaan muuqaalkan idinku dheereeyo. maalmaha soo socdana horta dadkaasaan soo waraysan doonaa qaybo ka mid ah. waxaan hadda samaynay page weyn oo secret group noo ahaa, innaga noo xirnaa keliya only memberska dadka ah aan kusoo dari jirnay, ayaan hadda waxaan ka dhignay public runtii. facebookaas waa kugu soo casuumi karaa haddii aad markaas waxa weeye joogto meelaha wadamada runtii aad ka soo geli karto, ama markaas waxa weye coachingkeenu ka shaqeeyo. facebookaas waan kugu soo casuumayaa, waana kugu soo darayaa si aad ula socoto waxa aan samaynayni, dadku waxay samaynayaan, waxa ay dadku cunaan, waxa ay dadku maaragta joogteeyaan, isbedelaadka, resultiga, natiijooyinka kala duwan, farxadda dadku haystaan, si aad u aragto go'aan ugu qaadato. ayaan markaas waxa weeye waxaan sanadkan go'aansanay inaan dad ilaa 5,000 hadda ku jira, adiguna insha Allah waad ka mid noqon doontaa haddii aad joogto wadamo laga soo geli kara iyo waxa jira wadamo laga soo geli karin. wadamada markaa inaad joogto inaad joogin insha Allah aad ii soo sheegi doontaa biidnillaahi alkariim. wadamada aan u furnay ayaad markaas waxa weeye haddaad joogto waad ka mid noqon doontaa, waana idinla wadaagayaa groupka insha Allah. magaciisa ma geli kartid, waa in lagugu soo invite gareeyo, anigaa kugu daraya groupkaas si aad waxyaabo badan u ogaato. maxay dadkan u cunaan, maxay dadkan la qurqurux badan yihiin, maxay dadkan style u yihiin, maxay dadkan waxa weeye quraac ka dhigtaan, maxay ku casheeyaan, maxay ku qadeeyaan, maxaa snack u ah, maxay exercise sameeyaan, maxay sababtay ku dhacday inay dadka isbedel helaan. insha Allah ayaan la wadaagi doonaa. runtii waxaad ku arki doontaa wax badan oo aad maantay adiguna u baahan tahay inaad samayso, dad sameynaya insha Allah. isoo qorqoraal waxa weeye whatsappka qaasad weliba especially whatsappka jecelahay inaad qoraal iga soo qorto si aad markaas aan u galo maaragta qorshahaagii plankaagii. 15 bisha 6aadba waad bilaabi kartaa programkaaga si 3 bilood oo soo socota ilaa 4 bilood soo socota aad u gaarto guulo waaweyn, qabowguna oo kugu soo galo adigoo waxa weeye steelkaaga wax badan ka bedelay, processkaaga kuu socdo, yaqaana qaabkaad u noolaanayso. waa inaad garanaysaa qaabkaad u noolaanayso, waa inaad ogtahay waxa jirkaaga uusan u baahnayn iyo waxa uu u baahan yahay, waa inaad ogtahay waxyaabaha aadan ka maarmaynin oo caafimaadkaaga iyo jirkaaga uusan ka maarmaynin, waa inaad ogtahay. waxaa jira dad badan oo waxay dhahaya miisaanan dhibaynaa, haddana waxay samaynayaan waxyaabo qaldan runtii. caafimaadkooday dhib u geysanayaan, waxa weeye nafaqadooday dhib u geysanayaan, maaragta jirkoodii dhanay dhibaato u geysanayaan, hadhowna waxa weeye waxay la kulmayaan waxyaabo aysan jeclaysanaynin. jirkaaga ha dhibaatayn, caafimaadkaagana dhibaato ha u geysan, waxaadan garanayna ha cunin, waxa weeye jirkaagana ha ku dilin orod kaliya. waxaad u baahan tahay
nafaqo dheelitiran iyo inaad markaas coach hesho lagula taliyo. marka aad baan idin salaamayaa. muuqaalkan hadduu ku soo gaaro waxaad ku taageeraydaa qof kasta ood garanayso inuu u baahan yahay inuu lifestylekiisa wax ka bedelo. haddaad og tahay ama aad friend la tahay qof miisaankiisa raba inuu dhimo laakiin meel wax uu bilaabo ama wax uu ku dhima la, insha allah ku taageere facebookgayga insha allah magaciisa, muuqaalkan ku taageere youtube-kayga u sheergare, intaad koobi tiraa linkiga u dir si uu u daawado uga faa'iidaysto. adigana ajar badan baad ka helaysaa. qofkaasna waxaa laga yaabaa inaan coaching u samayno inuu go'aan qaato, because waxaa jira dad badan oo isbeddel raba, waxyaabo badan tijaabiyey haddana ku guul daraystay. marka quruxdaadii shaybkaaga iyo caafimaadkaagii lifestyle-kaaga inaad sida aad jeceshahay aad u gaarto ayaan insha allah kaala shaqaynaynaa. adiguna intaad nagu caawi, u sii sheergare asxaabtaada, la sii wadaag. saan idiin sheegana qof kastood garanayso kuugu jira facebooka waxa weeye ku taageere muuqaalkan. aad iyo aad mahadsantihiin. insha allah muuqaalkeenna xiga intaan soo gelinayo insha allah waraysiga ah waxaan kaga tegayaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.